kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo lafta gareen oo kasoo horjeestay go'aamo shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka soconaya maxay yihiin go'aamada ay kasoo horjeesteen lafta gareen iyo sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor warkeena ayaa idinku soo gudbin doonaa iyo Itoobiya oo markan galaysa xaalado adag iyo duqeymo ka soconaya xadka Suudaan iyo Itoobiya ee wadaagaan madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hadda sheegay in lafta gareen iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay caqabad ku yihiin shirka ka soconaya Muqdisho qaramada midoobe oo go'aamo adag waqtiga kan ka qaadanaysa shirka Muqdisho ka soconaya madaxda midowga musharaxiinta oo wali rajo wanaagsan ka sugaya shirka Muqdisho ka soconaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka dalka ayaan daawadayaal warkeena janaalkeena runta wararkii idinku soo gudbin doonaa haddii aad daawada janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share gareeyo commentigaagana waa noo muhiim aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen ayaa waxa ay hadda si cad ay uga soo horjeesanayaan go'aamada qaar ee ku aadan shirka ka soconaya Muqdisho shirka wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa in maanta uu galo maalintiisa saddexaad iyadoona uu horyaalo qodobo adag ay ku heshiin la yihiin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kale hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxay yihiin kuwa si cad uga soo horjeestay in ammaanka guud ee doorashada gacanta loo geliyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale go'aamada kama dambaysta ah ee doorashooyinka waxa uu Rooble si cad u sheegay in waqtigan ay muhiim ay tahay in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka hase ahaatee Rooble ayaa waxa uu caqabado aad u adag uu kala kulmaya tiimka farmaajo ee ku sugan shirka madasha wadatashiga qaran kaasi oo u muuqanaya in culays aad u xoogan uu aad hadda u soo food saareyso qoraal ay shalay ay soo saareen sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa waxa ku jira laba qodob oo la xiriira amniga waxaana lagu yiri waa in ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada amniga loo daaya hadii uu farmaajo uu faraha kula sii jirana amniga doorashooyinka ay qalqal xoogan ay geli doonto doorashada Soomaaliya ayaa waxa lagu wadaa in go'aan cad laga soo saaro shirka golaha wadatashiga qaran Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cali Guudlaabe ayaa hadda waxay yihiin kuwa isku mowqif ah inkastoo Cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kale hogaamiyaha Galmudug ay ka mabda' duwan yihiin madaxda kale ee maamul goboleedyada ee ku sugan shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka soconaya tendada Afisyoone ayaa hadda waxa ka jira xaalad adag iyadoona maanta lagu wado in war-saxaafadeed rasmi ah laga soo saaro shirkaasi sidoo kale waxa laga yaabaa in maalin afraad uu qaato shirkaasi maadaama wili go'aamada ay isku fahmi la yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa horey waxa uu sheegay in wax waliba ay noqonayaan go'aamo adag kuwa uu ka qaadan doono si kastaba qodobadani ayaa waxa ka soo horjeeda Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis lafta gareen oo ku xiran farmaajo waxaana ila wareedyo ka tirsan filla Soomaaliya ay noo xaqiijiyeen in aysan marnaba aqbali doonin in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo Rooble hadii ay taasi dhacdana waxay noqon doontaa xaalad adag in uu dalka u gali doono haddana madaxda maamul goboleedyada ayaa go'aankooda ugu weyn waxa uu yahay in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka sidoo kale madaxweynaha Galmudug ayaa si cad uga soo horjeestay in hal magaalo lagu soo koobo doorashada maadaama ay doonayeen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale Cabdicasiis lafta gareen in laba magaalo lagu qabto doorashada haddana Cali Guudlaabe Xuseen iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa ay rajeynayeen in hal magaalo lagu soo koobo gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Kismaayo doorashada Soomaaliya haddana waxaa caqabadaha ugu adag waqtiga kan jira ay noqonayaan kuwa dib u dhac weyn uu ku imaan karo arrimaha doorashooyinka maadaama ay aad u adkaanayso go'aamada adag ee la qaadanayo
qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tilmaameen in haddii sidaan xaaladdu ay sii ahaato ay xaaladdu ay noqon doonto mid aad u adag doorashada Soomaaliyana waqti badan uu dib u dhici doonto. Doorashada Soomaaliya ayaana la ogeyn waqtiga rasmiga ah toos ay u soo gabagaboobi doonto maadaama doorashada golaha shacabka hadda bilow ay tahay, haddana si gaar ah eedeymo kala duwan loogu jeedinayo madaxda qaar ee maamul goboleedyada. Madaxda maamul goboleedyada kala hogaamiyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa waxay yihiin kuwa boob fara badan ka sameeyay qaybo ka mid ah doorashada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa lagu sheegay qodobada qaar ee ku aadan in dib loogu noqdo doorashada, isla markaana xildhibaanada qaar kuraastooda uu buuq fara badan ka jiro waqtiga kana ay muhiim ay tahay in la xaliyo buuqaasi, balse uma muuqanayso in ay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale Laftagareen go'aankaasi ay ku qanci doonaan. Shirkani Muqdisho ka soconaya ayaa waxaa waqtiga kan oo u muuqanaya mid xaalado adag galaya, inkastoo haddana madaxda qaramada midoobay ay hore u sheegeen in wax waliba muhiim ay tahay in loo daayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, balse Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu qarash badan uu ku bixinayaa sidii go'aan kasta oo jira looga soo horjeesan lahaa, isla markaana tallaabo kasta ay u noqon lahayd mid isaga u qaas ah. Go'aan kastana filla Soomaaliya ay kaga hortagi doonto shirkaasi. Shirkan ayaana hadda rajada ugu wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ay ka leeyihiin ay tahay in wax walba oo ku aadan isbedelada doorashada ay noqoto mid guulo fara badan ay ka gaari doonaan madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood. Dhanka kalena daawadayaal, waxaa duqeymo aad u xoogan oo ka soconaya xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan. Wararkii ugu dambeeyay xadka ka imaanaya ayaa waxay sheegayaan in ay mararka qaar duqeymo aad u xoogan ciidamada Itoobiya halkaasi ay ka sameynayaan. Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa horey waxay u sheegeen in jabhadda TPLF waqtiga kan aysan ku sii sugnaan doonin wadanka Itoobiya. Wadanka Itoobiya hadda xaaladdu uu galay ayaa waxay mar kale u muuqanaysaa in ay aad u adkaanayso, iyadoo Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya Master Abiy Ahmed uu sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay cid kasta oo si gaar ah kaga soo horjeesta in ay tallaabo adag ay ka qaadaan. Taasina tallaabooyinkaasi ay u muuqanayso in Itoobiya dagaalka ay hadda TPLF ay kula jirto oo u muuqan kara mid ay doonayso inay ka guuleysato. Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya ayaa horey waxa uga soo horjeestay wadahadalada lagu xalinayo dagaalka ka soconaya wadanka Itoobiya, inkastoo saakay dagaalada iyo duqeymaha kala duwan ee ka dhacaya wadankaasi shacabka ay baqdin aad u xoogan ay ka muujinayaan. Haddana jabhadda TPLF ayaa rajada ugu wanaagsan ay leeyihiin waxay tahay sidii awoodda guud ee wadankaasi gacanta ay uga dhigi lahaayeen, balse uma muuqanaysa in awoodda ay gacanta ay ku dhigayaan maadaama culaysyo aad u xoogan ciidamada dalkaasi ay kala kulmayaan. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliyana daawadayaal waxay sheegayaan in muwaadiniinta Soomaalida ah ee ku nool wadanka Kenya ay hadda cabsi xoogan ay soo wajahday kadib markii madaxweynaha wadanka Kenya Master Uhuru Kenyatta uu si cad u sheegay in dowladda dalka Kenya ay diyaar u tahay in ay wax waliba oo dhibaatooyin ay ka hortagto maadaama ganacsiga guud ee wadanka Kenya uu hoos u dhac aad u xoogan uu ku yimid kadib markii dowladda Kenya dhaqaale fara badan ay ka heli jirtay ganacsiga qaadka. Ganacsiga qaadka ayaa waxaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo gebi ahaanba uu ka joojiyay Kenya, inkastoo heshiisyo fara badan ay horey u galeen oo fashilmeen. Haddana waxay hadda u muuqanaysaa in dowladda Kenya ay cadaadis ay saari doonto ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool wadankaasi. Wadanka Kenya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada hadda ay ganacsi fara badan Soomaaliya ugu furan yihiin. Wadamada ganacsiga Soomaali fara badan ay ugu furan yihiin, haddana Soomaalida ayaa baqdin xoogan ay soo wajahday. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa horey waxay u sheegeen in ciidamada booliska wadanka Kenya ay mararka qaarkood ay kala kulmaan jirdil, handadaad iyo dhibaatooyin kala duwan oo mararka qaarkood loo geysto, inkastoo dowladda Soomaaliya ay war cad ayna ka soo saarin dhibaatooyinkaasi muwaadiniinta Soomaalida ah lagu geysanayo wadanka Kenya. Guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saaro, like dheh, share gareey wararkeena, commentigaagana waa noo muhiim.